ixtiraamku waxa uu ka hormaraa jacaylka, runtuna waxay baabi'isaa beenta, toobaduna waxay gubtaa oo holcisaa shaydaanka. haddaba haddii aad haysato qof ku jecel, fadlan ilaasho. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka muslixa ee dadka khayrka iyo wanaaga ugu yeera ayuu Allah subhanahu wa ta'ala kaga jecel badan yahay kumanaan kun oo iyaga kaligood wanaagsan. qofkaasina maalinka yawmul qiyaama wuxuu ka mid ahaan doonaa kuwa carshiga raxmaanka harsada, maalinkaas oo aysan jiri doonin wax xar ah ilaa ma carshiga raxmaanka harkiisa mooyaane. rabbi oo naga yeel kuwa dadka khayrka iyo wanaaga ugu yeera. Assalaamu calaykum. qof kastoo hadda daawanayo waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ugu baryaa in uu ka dulqaado culays walba oo haysto, faraj khayr qaban oo u furo, cadaabtana oo ka xoreeyo Allah subhanahu wa ta'ala biidnillah. nabigii isagoo sujuudsan qorta laga gooyo wuxuu ahaa nabi yaxya calayhi salaam. waxaa la sheegaa nabi yaxya calayhi salaam isagoo tukanaya in ay qorta ka gooyeen kufaartii reer bani israa'iil. walaal ilaahay dartiis u sii sheergaray adigoo mahadsan. nabigii xanuunsanaa 18 sano wuxuu ahaa nabi ayuub calayhi salaam, wuxuuna ahaa nabiga ugu dulqaadka badnaa. walaal ilaahay dartiis u sii sheergaray adigoo mahadsan. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa dhaawacay dagaalkii Uhud 3 qof oo kala ah: Cutba bin Abi Waqaas, Abdullah bin Shihabuddin, Abdullah bin Qimma. walaal ilaahay dartiis iyo rasuulka dartiis u sii sheergaray adigoo mahadsan. gabar ayaa aabaheed su'aal weydiisay, waxay ku tiri aabo intee in la eg ayaan jirkayga ka banan karaa? aabihii ayaa u jawaabo wuxuu ku yiri gabadhaydii waxaad jirkaaga ka banaysaa ilaa inta aad uga dulqaadan karto in ay naartu gubto. subxaanallah, wallaahi cadaab rabbi iska dhaafe xataa uma dulqaadan karno caadada rabbigeen ee walaashay xijaabo. walaal ilaahay dartiis sii sheergaray adigoo mahadsan. wax ka bar boqortooyada islaamka waqtigii Umar bin Khattab. hogaamiyihii geesiga ahaa ee Umar bin Khattab wuxuu ku dhashay magaalada Makka taariikhdu markay ahayd 579 miilaadi. aabihiis waxaa la oran jiray Khattab ibn Nufayl, hooyadiina Hantama bintu Khattab. waxaa la dhashay Zayd ibn al-Khattab iyo Fatima bintu al-Khattab. wuxuu ku geeriyooday Umar bin al-Khattab magaalada Madiina taariikhdu markay ahayd 644. walaal khaali, haddii aad jeceshahay in aan soo badiyo follow iyo share ila dhaafin adigoo mahadsan. ma garanay maalintaas maalintay tahay, laakiin waxaan hubaa inaan sujuuda ku tilooyi doono farxad awgeeda. aniga iyo adiga iyo dhammaan waalidiintaadaba waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka baryaa in uu jannada naga wada kulmiyo biidnillah. rabbi oo ilaahay maalinka qiyaamaha, maalinka musiibada, maalinka cadaabka ah, maalinka dhibaatada, sare joogka oonka ah, qaawan saqleynta ah, siigada iyo boorka ah, sacabada marnaanta ah, dadku wada sirgacan yahay, kulaalka iyo sunjiirta ah, cadaabka iyo xanuunka ah. rabbi oo ilaahay hooyadiisa lugla ah iyo sabiga ay dhashay musiibo jirta awgeed ay ciroobi doonaan ayaantaas sidaasi ah arrinkuna siloon yahay. rabbi oo ilaahay adigaan ku magan galay, adigaan ku maciinbiday, adoontaadii baan ahay, adigaan ku aaminay kuwa aad u raxmatay carshiga raxmaanka harsada. rabbi oo iga yeel jahannamo salkeediyo samhariiro naartiyo jaxiimiyo cadaabka. rabbi oo iga xoreey. allahumma aamin.